sheekadan waxa la yiraahdaa dharigii dilaacsana biyo dhaamiye reer Hindiya ayaa waxa uu lahaa laba dhari oo biyaha ku dhaamiyo dhariga hadii aan idin sharaxana waa haamaha biyaha ee inta badan dadku garbaha ay ku qaataan ee labada garab la suro labadaasi dhari ee uu lahaa mid waxay ahayd mid wanaagsan tay ahaan ama shaqada siday u gudanayso halka ay takalana lahayd dilaac u suura gelin waayay in shaqadeeda si fiican ay u gudato oo biyihii lagu shubay ay gaarsiiso halkii loogu talagalay ta wanaagsani biyaha lagu shubo ama qaadkeeda si wanaagsan ay u gaarsiin jirtay guriga maamulihiisa ee uu geynayo biyaha halka ta dilaacsana ay haaf ama qayb kamid ah biyaha ay sii deyn jirtay inta ay wadada ama dariiqa ay ku sii jiraan markii 2 sano ay u dhamaatay ay sidaas shaqada ku wadeen ayaa tii dilaac lahayd waxa ay dareentay shaqo xumo iyo waliba waxay aad uga xumaatay dhibaatada ay ninkan u geysanayso daalka iyo tacabka biyihii uu soo dhaamiyay ay dhexda ku sii qubayso halka tii wanaagsanaydna ay shaqo wanaagsan ay dareemaysay isla markaasina ay ku faraxsanayd waa haanta ama dharigii fiicnaaye shaqadeeda wanaagsan 2 sano hadaba markii ay sidaas shaqada ay ugu jireen ayaa ay taasi dilaacsanayd ama haantii dilaacsanayd waxa ay ku tiri ninkii biyoolaha ahaa aad baan u murugoonaya ama u ciishoonaya dhibaatada aan ku geysto iyo waliba biyihii inaan si fiican shaqadii aad igu qabanaysay aan u gudan waayo oo biyahayga ama biyihii aad igu qaadaysay haaf kamida ay dhexda ku sii qobtaan taas daraadeed waxa aan dareemayaa shaqo xumo waana ka raali gelinayaa dhibaatada ama inta anigu aan leeyahay wuxuu ku yiri u fiirso marka aynu noqono ee aynu taaga ama taagada inaga xigta guriga aynu qabanaynay aynu marayno quruxda iyo waliba muuqaalka yaala markii uu biyoolihii uu soo socday ee uu dariiqii uu tilmaamay uu marayo waa halkii tiirada ama buurta yar ahayde waxa ay indhaheedu qabteen markaasi haantii dilaacsanayd ee warwarsanayd quruxda iyo waliba ubaxyo iyo jawi aad u wanaagsan iyo qorraxdii rimaad leh waa muuqaal deegaan oo aad u qurux badan oo dabiici ah balse wali waxay dareemaysay ciishood iyo waliba shaqadeedu inaanay si fiican u gudanayn waxa kale oo ay dareemaysay in dilaaceedu marba marka ka dambeeyo si weynaanayo taasina aanay u suurtagelinayn inay shaqadeeda si wanaagsan ay u sii gudato mar kale ayay tiri waxa aan rabaa waan ku raali gelinayaa uma malaynayo inaan shaqo fiican aan ku qabto aad baan uga xumahay liiga ama biyaha aan dareerinayo ee iga daadanaya markaas ayuu ku yiri u fiirso ubaxyada hareertaada ku yaala wadada ubaxyadu waxa ay ku yaalaan oo ay ka soo baxeen dhinaca adigu aad iga xigto ee adigu aad xigto oo qura ubaxyadan quruxda badani waxa ay ku hirgaleen ama ku suurta galeen buu yiri markii aan ogaaday intaada ama dilaacaaga aniguna waxaan bilaabay inaan ka faa'iideysto waxaan siir ku beeray aad u badan wadada dhinaceeda kadibna inta aan wadada marayo gubashada biyaha ka liigaya ee daadanaya ayaan ka faa'iideystay waa ta keentay deegaankan quruxda badan ubaxyadan iyo waliba cimiladan aadka uga heshay waxa keenay waa dhaliisha adigu aad ka cabanaysid markaasina waxa uu hoga tusaaleeyay in dib kasta iyo in kasta ay dhinaca kalena leedahay fursad loo baahan yahay in laga faa'iideysto waxa kale oo uga sheekeeyay oo sheekada ugu daray in xataa ubaxyada uu halkan ka qaaday uu qaar ku qurxiyay guriga maamulihiisa uu u shaqeeyo waxa kale oo yiri xataa miiska cuntada ee maamulaha ubaxyada ku yaala waa kuwa adigu aad suurta gelisay taas ayaana u ah ama muujinaysa inaad i taageertay oo aad waxtar leedahay wali ha warwarin hana ciishoon haddii aan u nimaadno nuxurka ama xigmadda ay sheekadu xambaarsan tahay waxa weeye dhammaanteen waxaynu leenahay in waxaanan dhammaanteen aynu nahay dhari dilaacsan adduunyadan aynu ku noolahayna ma jiro shay bilaa faa'iido adigaagan hadda daawanaya barnaamijku waxa laga yaabaa inaad leedahay in balse waxa laga yaabaa intaasi inay leedahay fursad aad u weyn oo loo baahan yahay inaad ka faa'iideysato iimaheena ama dhaliilaheena ama waxyaabaha dadka qaar ay nagu dhaliilaan waxaan u bedeli karnaa fursado waaweyn oo horumar ah